ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa sheegay mooshinka laga gudbiyay gudoomiye Jawaari inuu yahay mid ansaxaan Mr. Cabdiwali Sheekh Ibrahim Mudde oo xalay saq dhexe shir jaraa'id ku qabtay hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ayaa sheegay mooshinka ay keeneen qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya isla markaasna ay ka gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu yahay mid ansaxaa shirkan jaraa'id oo aan idinkugu yeeray wuxuu ku saabsan yahay mooshinkii laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka oo la ii keenay taariikhdu markay ahayd 14 bishan mooshinkaas sharci ahaantiisa mooshinkaas waxaa ii keenay xildhibaano wuxuuna sharci noqday marka la ii keenay oo aan fiiriyey sharciyadiisina ay dhammaystirantay kadibna aan saxiixay ayuu sharci noqday waxaan rabaa marka inaan idiin sheego inaanan lagu wareerin sharci ahaanta mooshinka wararka suuqa la geliyey inaadan ku wareerin mooshinkaas sharci ahaantiisa waxay dhaqan gashay markaan aqbalay oon ogolaaday oo aan saxiixay sidaas ayuuna sharci ku yahay haddana sharci ahaantiisa sii wadidiisa qaabku u shaqayn lahayna aniga ayaa iska leh waxaan rabaa marka inaad ogaataan sharci ahaanta mooshinka intaasaan idinku yeeray waana dhaqan galay sharciyadiisana kaamil waay guddigii joogtada u yeeristiisa anaa iska lahay anigaba haddaan u yeerin sharci maha inuu fariisto mar haddii guddoomiye laga keenay mooshin marka taas muranba kamaba jiro tirada rasmiga ah ee ii keentay mooshinka xildhibaanada waa 107 xildhibaan waay kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa maanta waxay magaalada Hargeysa ku qabteen dibadbax aad u ballaaran oo ay ku difaacayaan qadiyadda Soomaaliland waxaana kumanaan ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ay isugu soo baxeen fagaarayaasha iyo wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada Hargeysa iyagoo oo difaacaya qadiyadda Soomaaliland hadda waxaa si toos ah khadka telefoonka ugu jira wariyayna magaalada Hargeysa wariye Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen halo salaamu calaykum Cabdirashiid عليكم السلام ورحمة الله نجيب عبد الولي سوى ناس ما كم غير بل أقولن عبد الوهاب واحد نجور بحسا دي بتبحن ما أنت كده عي مجالات هرجيسة أيه وحى وكسب سنة نجيب هذه بعض ما تنتهي دي بتبحن ما أنت كسب بحين بالشدة كلا دولة كنا قن عدين نقول لها أرضيدا قوة جامعها أقويها كدليرة هوينك عقاش وحكرت كي ولدا قيبها كلا دولة بالشدة فقارها بيرت حرية المجالات هرجيسة كلية تكون كورنين مجالات هرجيسة لكن dhammaan ba gobolada kala duwan iyo degmooyinka deegaanada Soomaaliland ayuu ka dhacay mudaharaadkaasi waana banaanbax lagu taageerayo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Soomaaliland DB waliba dawladda federaalka Itoobiya ay wada galeen ee lagu maalgelinayo dekedda magaalada Berbera ujeedada ugu weyn kaas ahaa waxaana dadweynaha si kala duwan deegaanada Soomaaliland iskugu soo baxay muxuu la hadlay isla markaana kala qayb galay banaanbaxaasi mas'uuliyiin kala duwan oo ku kala sugan deegaanadaasi ay iskugu soo baxeen bulshada kala duwan ee Soomaaliland kuna taageerayaan heshiiska saddex geesoodka ahaa ee maalgelinta dekedda magaalada Berbera Cabdirashiid marka la eego heshiiskan ay dawladda isu tagay Imaaraadka Carabta iyo xukuumadda Soomaaliland iyo Itoobiya oo garab ah ay galeen
muran ayaa ka taagnaa muddooyinka u dambeysay oo golaha baarlamaanka shacabka soomaaliyana waxay soo saareen go-aan diidmo ah oo ay qaraar ay kaga soo horjeesteen in heshiiskaasi uu dhaqan galo arrintaas sidee looga arkaa somaliland najib waad mahadsan tahay arrintaasi hore waxa u cabiray xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo fadhi aan caadi ahayn ka yeeshay islamarkaana heshiiskaasi taageeray bulshada siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka iyo weliba dadweynaha kala duwan ee somalilandna iyagu waxay u arkayaan somaliland inay tahay dawlad muxuu ahaa goonida isu taaga islamarkaana ka madax banaan soomaaliya 1991 bay ahayd markii somaliland dib uga soo noqotay xornimadeedii dalkii la isku odhan jiray soomaaliya marka bulshada kala duwan ee somaliland sidaasi ayay muxuu ahaa u qabaan waxaanay iyagu aragtidooda markaanu ila xoogaala aanu la aragnay inaanay soomaaliya muxuu ahaa waxba saameyn ku yeelanaynin fadhiga xildhibaanada iyo weliba mas-uuliyiinta kala duwan ee soomaaliya waa siday qabaan bulshada iyo weliba siyaasiyiinta kala duwan ee somaliland cabdirashiid dibadbaxan maanta ka dhacay magaalada hargeysa wuxuu kusoo beegmayaa xilli madaxweynaha somaliland mudane muuse bixi cabdi uu safar dalka dibaddiisa ku maqan yahay gaar ahaan dalka isutaga imaaraadka carabta oo uu safarka qudhiisa dalkaasi ugu maqan yahay ay qayb ka tahay heshiiska DP World dowladda Ethiopia iyo imaaraadka ay wada galeen taas qudheeda ma wax dhibaato ah dhinaca somaliland ayaa ka soo noqotay sababta madaxda lagu yeeray maxay aad u mahadsantahay najib ma aha wax dhibaataa sidaanu safarka madaxweynaha aanu ku helano iyo uu baxay maalintii muxuu ahaa dhowey waxa weeye in lasoo kala socday heshiiskii rasmiga ahaa muxuu ahaa maalgelinta dekeda magaalada berbera oo qalinka madaxweynuhu kusoo dugayo weliba mas-uuliyiinta dowladda isu taga imaaraadka carabta sidaasina lagu dhaqangeliyo heshiiskii iyo weliba maalgelinta magaalada berbera ay halkaasi kasii socoto wararka ugu waaweyn eenu helano ee ay u tageen dalka isu taga imaaraadka carabtu waxa uu noo sheegayaa waa sidaasi aanu xogta ku helano aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaheena magaalada hargeysa cabdirashiid cabdiwahaab xuseen oo khadka telefoonka igu warramaye wasiirka xafiiska horumarinta biyaha ee dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya ayaa ka warbixiyay faa'iidada ay biyuhu u leeyihiin dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya sida faafahinta warkan oo magaalada Jigjiga inaga soo diray wariyaheena Maxamed Axmed madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya Marwo Fartuun Cabdi Mahdi oo xafiiskeeda waraysi ku siinaysay warbaahinta deegaanka ayaa nooga warbixisay guulihii laga soo hooyay dhinaca biyaha 10kii sano ee ugu dambeysay iyo mashaariicaha biyaha ee waqti xadarkan xafiiska biyuhu gacanta ku hayo Marwo Fartuun ayaa ugu horeyn soo qaaday adeega biyagelinta ee laga hirgeliyay dhanka magaalooyinka markii la eego muddo 7 sano ama 8 sano ka hor biyuhu xagee u taagnaa maanta see xaguu maraya markaan eegno waa arrin farqi weyn ayaa u dhaxeeya adeega biyaha ee deegaankeena maanta ruux walbana oo deegaanka ku suganna uu ogyahay markaati uu ka yahay waxaan dhihi karaa 8 sano ka hor dhanka biyaha deegaankeena waxba kama jirin dhammaan qabaleeyadeena iyo magaalooyinka iyo degmooyinka deegaankeena oo dhan biyo la'aan badan baa iyaa ka jira aad u badan dhanka magaalooyinka oo kale markaan eegno magaalada Jigjiga biyagelinteeda markaan soo qaadano waxaan haysanaa waxa weeye ilaa 35 ceel ayaa maanta biyo siinaya magaalada Jigjiga dhanka markii la eego waaji ceelasha biyaha ka soo siinaya dhankan tulli guuleed markii la eego magaalada dhexdeeda ceelasha ka dhisan ee hadda biyaha adeega siinaya markii la eego 35 ceel oo toos biyaha u bixinaya ayaa magaalada hadda maanta ka jira ugu yaraan ilaa 180 litir per second ayay ilbiriqsigii ay biyaha soo saarayaan magaalooyinka kale dhagax buur iyo qabri dahar iyo goday waa la mid iyaga laftigooda Marwo Fartuun oo hadalkeeda sii wadata ayaa ka hadashay natiijooyinkii laga gaaray dhinaca biyagelinta masaafada dheer oo adeeg biyo nadiif ah lagu gaarsiiyay tuulooyin iyo degmooyin tiro badan markaan eegno mashaariicaha biyagelinada multi village water supply system mashaariica la dhahaa ayaa jira multi village waxay ka dhigan tahay waxa weeye hal mashruuc oo biyagelin ah inay ka faa'iideystaan degmooyin badan hal mar inay ka wada faa'iideystaan tuulooyin inay hal mar ay ka wada faa'iideystaan oo hal mashruuc oo ilaa meeshu biyaha gaarsiin karo marka iyadoo laga duulayo kala sareynta dhulka
designka loo sameeyo iyadoo laga duulayo markaa in biyogelin loo sameeyo tuulooyin badan iyo degmooyin badan marka waxaan soo qaadan karaa hadda mashruuca Dhurwaale qabri bayax ilaa harta sheekha mashaariicahan gobolka city oo kale maadaama inta badan ay ban yihiin oo kale waa boosting system multi village fiican baa ayaa ka samaysan halka underground water koodu aad buu u fiican yahay ceelal badan oo biyo ah biyihii laga helay baa ayaa jira waxa kamid ah mashaariicaha multi village ka mashruuca burqad ka baxaya waxa weeye waa laba dhinac toos wuxuu u siinayaa gunogado dhinacna وهاجاج داوديال intaas aan kaga nimaadno warka ku saabsanaa wasiirka horumarinta biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hadii ay ogolaado warkan oo dhameystirana waxa ku daawan doontaan wararkayga dambe booliska dalka Kenya ayaa gacanta ku soo qabtay rag la sheegay inay ka tirsanayeen xarakada al-shabaab iyo hubkii ay wateen raggaas oo la sheegay inay qorsheynayeen weeraro ay doonayeen inay ka geystaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya taliyaha ciidanka booliska ee dalka Kenya ayaa warbaahinta u soo bandhigay hub iyo sidoo kale rag la sheegay inay ka tirsanayeen xarakada al-shabaab kuwaas oo damacsanaa inay weeraro qorsheysan ka geystaan gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaanu taliyuhu intaas raaciyay in raggan ay ku soo qabqabteen howlgalo ay ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ka sameeyeen gudaha magaalada Nairobi iyo sidoo kale magaalada Marti waxayna sheegeen in ragga lagu soo qabqabtay magaalada Nairobi qaarkood laga soo qabtay hotel ku yaala magaalada Nairobi sidoo kale waxa uu taliyuhu intaas raaciyay in raggan la soo qabqabtay iyo walxaha lagu soo qabqabtay ay kamid ahaayeen 80 kilogram oo kamid ah maadada waxa lagu qarxiyo ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano TNT taas oo ay doonayeen inay ku burburiyaan dhismayaal aad u tiro badan dad fara badan nafahooda ay ku galaaftaan hadii ay u suurta gasho Libyana waxa haddii daawada wararka dibadda aynu eegnana dalka Liibiya ayaa sidoo kale ku raad jooga inay soo qabqabtaan 205 qof oo sidoo kale dadka tahriibiya dowladda Liibiya ayaa soo saartay warqad lagu soo xirayo dad gaadhaya 205 qof kuwaas oo la sheegay inay dadka tahriibiyaan muhaajiriinta ah oo ay Soomaalidu u yaqaanaan magafayaasha shabakada wax tahriibisa ayaa lagu eedeeyay jirdil kufsi dil iyo sidoo kale tahriibin waxayna sidoo kale dadka wax tahriibiya ama dhibaatadaas lagu soo eedeeyay kamida mukhalasiin saraakiisha amniga madaxda xeryaha ay ku sugan yihiin dadka soo galootiga iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan safaaradaha Afrikaanka ee ku yaala dalkaasi warqadan waxa ka soo baxday xafiiska xiriirlaaliyaha guud ee dalkaasi Sidiq al-Suuri kaas oo sheegay in baaritaano dheeraad oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in ay arintaasi ka dhacday ama ay geystaan inta badan dadka wax tahriibiya waxa uu sidoo kale sheegay in xafiiska wax tahriibiya iyo sidoo kale kooxda Daesh xiriir dheeraad oo ka dhaxeeyo Liibiya ayaa waxa ka jirta xaalad qalalaasa tan iyo markii 2011 la dilay hogaamiyihii dalka Liibiya ee Muammar al-Gaddafi وهاجاج داوديال intaas waxa ku eeg war wixii dalka gudihiisa iyo dibadiisa naga soo gaaray oo aad si toos ah uga daawaneyseen telefishinka caalamiga Universal xarunta magaalada Muqdisho warka waxa idin la socodsiinaya anigu waa Najiib Cabdiwali Cabdixiis aniga dhammaan khiyaartii igala qayb qaadatay tabinta warkaasi intaan warka xiga ku kulmi doono dhamaantii waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh